maxaynu kala soconnaa warqadii uu Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida u diray madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle warqadii irdaha u furtay isdhexgalka Djibouti iyo deegaanka Soomaalida warqad sabab noqotay aasaaska akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga ee AGA warqad sababtay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle uu guri u dhisay dalka Djibouti abwaankii Soomaalida Sangub warqad sabab noqotay in dawladda Djibouti iyo dadkeeduba ay wax ku qoraan farta Soomaaliga iyo warqad sababtay in dawladda Djibouti ay xukuumadii Cabdi Maxamuud Cumar ka dalbato 400 oo macallin sifa ay sare u qaadaan barashada qoraalka farta Soomaaliga ee reer Djibouti xilli ma ay ahayd warqadani maxaa loogu baahday iyo guulihii ka dhashayba aynu ku soo gudbinaynaa tabintan waxaan ahay Axmed Awga halkanina waa JTN sanadku waa 2012 tirsiga Ethiopia oo ku beegan 2009 Gregorianka Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee DDS ayaa deegaanka Soomaalida ka hirgeliyay nidaamkii dib u curashada oo maamulada goboladii degmooyinka la isku dhex shaandheeyay iyadoo degmo iyo gobol kasta la geeyay hogaamin laga soo xulay gobolo kale oo laftoodu kala duwan wixii intaas ka horeeyay dhammaan deegaanku cid waliba gobolkeedii degmadeeda ayay maamulanaysay sida aynu haddaba u joogno degmada ay shacay ee gobolka City ayaan lagu dhaadhiciyay waagaas maamulkii dib u curashada ahaa oo iskaga yimi gobolo kala duwan waxayna wada shaqeyn la yeesheen maamulka gobolka Cali Sabiix ee Djibouti kolkii la gaaray xilligii qiimeynta waxqabadka oo ay maamulada degmooyinku xilligaas isugu iman jireen jigjiga maamulkii degmada ay shacay dib u curashada ahaa ayaa ka codsaday dhigooda Cali Sabiix in la wadaago warbixinadii wada shaqeyntooda ay diyaarsadeen sifa ay maamulka ay shacay ugu darsadaan xidhiidhka wanaagsan ee kala dhaxeeya Cali Sabiix warbixinta sanadka ay la hortagayeen xukuumadda iyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar maamulka Cali Sabiix ee Djibouti ayaa soo qoray warbixin ku qoran afka Faransiiska waayo dalka Djibouti xilligaas iyo ka horba farta Faransiiska oo kali ah ayaa wax lagu qori jiray maamulkii dib u curashada ay shacay ay la yaab ku noqotay oo fahmi waayay kolka ay u timi warbixin ku qoran afka Faransiiska iyagoo oo la yaaban waxay maamulka Cali Sabiix ee Soomaaliyeed ugu baahdeen farta Faransiiska iyagoo heli karayay Soomaaliga kolkii ay maamulkii ay shacay yimaadeen qiimeyntii jigjiga soona jeedeen dhinacyadii adkaaya waxqabadka dhinacyada jilicdana waxay ku darsadeen caqabad dhanka xidhiidhka dariskooda maamulka Cali Sabiix ah oo ah qoraalka farta Faransiiska ay isticmaalayaan iyo inayna fahmaynin iyagu qodobkaasi waxa uu taabtay madaxweyne Cabdi Ilay kolkaas waxa uu madaxweynihii deegaanku qoray warqad ku socota madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo uu salaan kadib ku booriyayo inuu madaxweynuhu soo nooleeyo adeegsiga farta Soomaaliga xilligaas iyo wixii ka horeeyayba ma jirin xidhiidh toos ah oo ay yeelan jireen maamulka DDS iyo dawladda Djibouti sida awgeedna waxa uu madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar warqadii u dhiibay gudoomiyihii dib u curashada ee shacaa isagoo u sheegay inuu sii dhiibo gudoomiyihii Cali Sabiix si uu gaarsiiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle kolkii warqadii gaadhay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle turbadiiba waxa bilaabmay dhaqaaq soo nooleynta farta Soomaaliga ee Laatiin ku qoran gudaha Djibouti madaxtooyada Djibouti wasaaradaha iyo heerarka dalka ayaa dhaqan galiyay qoraalka Soomaaliga isla sanadkaas waxa Djibouti lagu xusay 40 guuridii afka hooyo ee Soomaaliga waxaana madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle martiqaad toos ah u sameeyay maamulka deegaanka waxaana ka qayb galay oo deegaan ka tagay mas'uuliyiin ka socday xafiisyada dhaqanka dalxiiska iyo warfaafinta waftigaasi waxa ka mid noqday Allah u naxariistay qaryaandhoodaan isagoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gellena uu magaalada Muqdisho ka soo raray Allah u naxariistay abwaan Sangub oo dalka Djibouti uga dhisay guri waxaana xuskii afka Soomaaliga ee xilligaasi lagu yagleelay akadeemiyad goboleedka afka hooyo ee AGA wixii intaasi ka dambeeyay xidhiidhka dawladda Djibouti iyo deegaanka Soomaalida ayaa noqday mid toos ah kulankii ugu horeeyay ee yeesheen labada madaxweyne ay isla qaateen tabaha ugu habboon ee nooleynta adeegsiga farta Soomaaliga gudaha Djibouti maadaama intaas ka hor dalka Djibouti dugsiyada hoose iyo dhexe lagu baranayay afka Faransiiska waxayna ka wada hadleen labada madaxweyne sida ugu sahlan ay Djibouti ku gaari karaan macallimiinta afka Soomaaliga ee DDS 400 oo macallin ayuu noqday qorshuhu in deegaanka Soomaalidu uu diray Djibouti kolkii ay gaadhay dufcadii koobaad oo ahayd 200 oo macallin waxa soo baxday cabsi ah in dhammaan macallimiinta deegaanku u guuraan Djibouti maadaama xilligaas ay dawladda Djibouti macallimiintii loo diray u qoondaysay mushahar aad u sareeya qorshaas ayaana halka lagu hakiyay waxaas dhaqan gashay in dugsiyada hoose ardayda Djibouti loogu dhigo afka Soomaaliga iyo in dawladdu adeegsato farta Soomaaliga ee Laatiin ku qoran dhammaan dhaqaaqyada isdhexgalka dawladaha Djibouti ee DDS isticmaalka qoraalka Soomaaliga ee Djibouti iyo gelista akadeemiyad goboleedka AGA oo xarun ku leh jaamacadda Jigjiga maamuuska abwaanadii Soomaaliyeed iyo xidhiidhka wada shaqeynta tooska ah ee dawladaha Djibouti iyo DDS gaar ahaan gobolada jaarka ah
waxa sabab u noqotay warqadaas uu qoray madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo iyada lafteeduna ku timi maamulkii dib u curashada ahaa ee xilligaasi lagu dhaadhiciyay degmada Ayshaca ee gobolka City.